gabadhan reerkeeda ugu degan yidhaah ninkan faa'iido ma soo waday ka leexo reerkii lacagii ugu dambeeyey iyo dahabkii ugu dambeeyey ee ka soo xaday hooyadeed iyo aabeed qasnada inta ku jirta ay ka soo bixisay ee ninka siisay ninka muxuu ku sameeyey kadib bal qasadaan qasa cajiib la waaye bakaaleen wada dhegeysanay qasadaan ayadan waa wacyigelin kale maxaa yeelay ayadan dadkeed dad badanaa suubiyo gabdho badanaa suubiyo aa sameeyaan gabdhaha reerahooda dhaqaalaha leh nimankan bayhoofka oo jeebabkooda faaruq ah inay shaqaysan rabin ee rabaan beenbeen inay ku shaqaystaan mise beenbeen lacag ku helaan qisadan iyada bay ku socotaaba qisada se u dhacday waxa waaye dad badanaa soo sameeyana buuxaan gabdho badan waxa waaye koley waa ku waxaana qaadanaya laakiin gabar meel ujeedo lama soo celi kare allaha xaqa allaha tusile dhihi kara wax kaloo ma sheegi karne gabadhan jaamacaday dhigataa wiilkan lagoynayene wuxuu leeyahay meel yar oo lagu gado man lagu gade playstationada celiska ah iyo waxyaalahaas playstationada gacmihiisa iyo waxyaalahaas ah oo ku gadaa adiga wax basiid oo waxbay ahayn waxa kasoo daraayo rafaadka israac ku jiro waxna ma haysto baahoofa gabadhan wuxuu iska dhigaa ninkan nin dhaqaale leh iska dhigaa gabadhan uu soo jiisho ku sameeyey asagaa jidku istaagay asagaa shukaansaday asagaa daba socday gabadhii ultimacy loo sheekeysanay marka dambe xitirirkiina soo dad asagana waa ogyahay reerkan dhaqaalaha leh hadduu ka doonto inaysan soo siinin gabadhan faguu yiri waa intuu raadinayay gabadhii oo doonta xiri gabadhiinaan rabaa inaan guur xalaal guursado maxaa haysataa hele duqa maxaa haysataa hele gabadhan maxaa u awoodaa gabadhan gabar jaamacad dhigato waay wuxuu yidhi aniga waxaan iska qabaa dukaankaas yariiska celiska aan ku gado wax kaloo aan qabo male waxaan haysta male hadda igu daraysin ahlan wasahlan waxay yidhaan wax kugu darayna male gabadhaanayti xoolaheedad raadinaysaa dhuunta xoolaheedad ka arkaysaa iska baxaan leh markii la buriyo gabadhan way xanaaqday waxay tiri ninkan waa jeclahay sababtaad celinaysin maxay tahay sababtaad iga celinaysin maxay tahay sababtaad u diidaysin maxay tahay laama ku necaysin asaga maahane cid kale ma jirto tiri ilaahay xalkeeda ninkan shaqalaana ka baatay gabadhii reerkeedii markay ka fariibaysay hayay tiri laakiin gadaashoodii ay ka wareegataa soo marka dambe u fikir wuxuu yiri saa dukaanka u weyneeyo oo cidiinina yani indhahooda aan u noqdo qof dhaqaale leh gurina aan u gado waxaan rabaa inay igu caawinto si kugu caawinahay tiri reerkiina kasoo xad uu yiri dahab kasoo xad dollar kasoo xad diinaar kasoo xad waxay haystaan iiga soo xad uu yiri abaay may ma dhihina hayay tiri way soo xadaa dahabka hooyadeed kasoo xadaa way soo sii shiibtaa mala fahmo way u keentaa marka dambe wuxuu yiri dukaankii xoogaa waa weyneeyey inaan waxaa rabaa guri yar shuka yar lagan heed yar noo gadee bal lacag waaweyn keeno yiri qasanada hooyadeed ee aabeed ee waardiyeysta furiga ka xaday waxay soo qaaday 14,000 dollar ku jirta lacagtii masriga ku urursaneed wixii oo dhan adiga waxay ku shubatay bahal foodar ahayd ku gurtay igaarka hor dhigtay tirahay idoonihii xurta lacagta gacantiga ka saaro yiri guriga ma soo gadaa ka bacdaan ka doonaa hay guriga soo noqotay maal bay soo martay hay korma soo doonane muddo isbuuc kalees ayuu maanta toddoba maalin oo tahay fiirdheys gabri waa waanto maskaxda dad kartaa leh ardu jaay qarib waxaan ku guursanahay male guur kula oo ku guur loo dooyo soo shaqalaana ka baatay waxma fahantii yiraahday bahlul waa dhaafta xataa gabadha waxay tiri saacama oo reerkeeni markay iga digayeen intana iga digayeen aday ku taala waxay ku digayeen raay ard wajigay kale waxa sameeyay male hooyad ma sheegi karto aabeed ma sheegi karto walaaled ma sheegi karto waxay noqotay tuugo ninkaana tuugo ka dhigay tuugo reerkoodii daldalay ilaa waxa maqli jiray tuug guriga kugu jiro laskama waardiyi kare tuug banaanka laska waardiyi laakiin mid guriga kugu jiro ma laska waardiyi karo ku qaada le guriga ku nooshahay bilaadan nafliyata ilmu dhowrtaa la yiraahdaa gabadhan say u aamusneed ayay habeen ka mid ah hooyadeed waxay istiri bal qasnadii wax kala soo baxa hadday furtay
waxyaalo qasanadan ma jirto saantalo maahan tiri guriga dhan isku wacday tiri qasanadan yaa furay oo waxaan daldashay ama tuug soo galay ama inta laga qaatay ama saan la yeel ama waxay tiri tuug soo galay hewlo soo galay ma soconaysay xoolaheena yaan dhacay waxa aamusnaan lahaa ma jirtay booliisku wac booliiska loo booliisku wuxuu sameynaa taxqiiq baar soo gala guriga inta joogto hal u wareystay gabadhii ugu dambeysay markii la wareysanay gabadhii markii dhinacyada laga maribo isciriis ilaa qof tuhun ku taagan oo ahaa wax qaadatay ba ay kasoo bilowday yeekiis ana xariitir xadnin meesha saaka bilaw ninkaasaan jeclaanay tir ninkii markaan isoo doontan reerkeen way diideen tir waxaan ku diideen tir wax la'aanta igaajada ilaahay baxshay tir nin toosan ma ahayn tir nin xoolaha gurigeena yaalo masreerkeena xoolihii leeyihiin u socdo ahaa anne wax magarataan ahaaye maalmalba u dabdali jiray jaceelka beenta ah oo igu wadi ama iga dhigi jira oo indhabeel igu dhigi jira soo u dabdalaya jira ugu dambaysan wuxuu yiri yaa ku aroosaa wajigaaga dhaqaaq wajigaaga gubtay taas ay u dhacay alaa taal biliisku waxay dhaheen masa sameyn adiga kule tuuga tahay in lagu xiro waajibkaaga halqaad hooyadii abeedne waxay tiri gabar waaye hal iska dhaafo abeed wuxuu yiri may haddaan maanta dhaafo yiri برنا كسرنا سا إقامة اللي قف حد إقامة صمرت منك كل حد هلي سقط منك على سقط منك وحير حواليه أنا كخارنا حسب كسميرون قارنا الدنيا كسمستوله وحن هاي خير هذا كوت على هذا العكس سؤالني هدي كلام حبسي قد قولي الله أصلا حبسي بيسألك لا وضع بحبسي بقى لكن ضو فكرة أنت لو أكلها ضو فكرة هدوا الصهيل إن الصهيل وهاي أكدوا فكرها دليل كله يا مركا تاسنوا وعي جرين كلام قبلها نما كان أو محيه تولي رادين عيسلين نايهن بقال الليهن حوله استاق ودان ريركود هذا حولك هيليست هدي ريرك ديدان حتى لهاي يبلو يكين يهبلاي يكين يهبلو يكين ناكتن عمس كريجس أحسن مترازو وحبا أضو هاي سنو كقراء عرير كينا كقو أبلغي تسلي جفتي weligeeda gabdhaha qaarkood isdhehi jireen adaan kugu ah hadday u go-dan marka dambena banaanka loo soo tuuraya iyadoo dhibaataysano ilmana laga soo dhalay markuu inta reerkeeda dhacays iyadoo cama ka dhigi musoontaa maxaa dhihi jiray jaceylkan beenta ah aba inta reerkooda dhacays uguma roono inay maxay ahayd oo le toos u raacdo ya haddaan walba gabdhow adan waalidkiin aad dhegeysanaynin gabdho badan oo soo sameeyan way jirtaa haddaanan waalidkiin aadan warkooda dhegeysanaynin jaceylka beenta ah ee indhala-aanta idinku ridaayo waxaan idinku talin lahaa inta reerkiina soo dhici laheedeen mase maanta reerkiina xoolay leeyihin oo ku daldali laheed ninka islaameed axsan joodariga oo haysto mase gawaanka oo seexdo kula seexo birin hadduu markuu dhaqaale rabo labada laata kaasoo geli nasiibka ay qabtaa laakiin reerkiina marnaba ha isku dayin inaa xoolooda xaraam waa aad soo qaadid ayagoo ogeyn gadaashooda ayagoo ogeyn intuu soo qaadid ninka ogeyn xaraam waay xaraam qadcan waay hadduu xoolahaaga adiga yahay aa shaqaystay haa laakiin xoolaha reerkiinaba hadday tahay aniga waxaan kaga digi lahay inaan isku taabanina xaraam waay walbo raac waxa la-aantaad ku raacda adaa jeclaatay adoo cama kaa dhiga jaceylkan adile banaanka lagu soo tuuro nasiibkaaga qabtaa haddoo mid fiican ilaah ka dhigan isla shaqaysto dad xoola meel soo saarta iska dhiga haddoo nin walba xoolahaas kugu rabi ahayne ee dantiisa labada birkaa gaari dabada haraanta kaasoo geli nasiibkaaga qabtaa ilaa albaabka shalka tagtala ku noqonay haddana ayadana waana kala mistireen hayay halada jiro qisadan maanta taasoo ku eg tahay qiso lamid ah insha allah khayr badanaa idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu